بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو ويل ميديا هدي اي تاي مركي كوو هوريسي اد سو بوقتو كانالكينا سبسكرايب نو سار غمبليل كفرو سي اد سوعتو 10 taxana aan soo galin doono casharkeen waxa uu ku saabsan yahay practice wada sheekaysi ba hadalka bilaabay hello ahleyn I have big problem my friend dhibaato weyn bay haysata saaxiib hello ahleyn I have big problem dhibaato weyn bay haysata my friend saaxiib what is your problem maxay tahay dhibaatadaadu tell me ii sheeg I try to help you waxaan isku dayay inaan ku caawiyo okay thanks waad mahadsantahay I have been learning English Ingiriisida waxaan baranayay for a long time waqti dheer and still I can't speak it very well welina si fiican uguma hadli karo but laakiinse I can understand it a little bit in yar baan fahmi karaa so sidaa daraadeed what can I do maxaan sameeyaa I have an idea for you fikrad baan ku hayaa adiga which can help you taasoo ku caawinaysaa if you follow it haddii aad raacdo do you come schoolka miyaad timaadaa every school day maalin kastoo iskuulka la dhiganayo no maya sometimes marmarka qaar I came waan imaadaa and sometimes I miss it marmarka qaarna waan jaraa well hagaage do you come to classka miyaad timaadaa early xili hore or late mise xili dambe ayaad classka timaadaa I came late time waxaan imaadaa xili dambe do you take part miyaad ka qayb qaadataa the competitions tartamada and answer miyaad ka jawaabtaa the class activity hawsha classka miyaad ka jawaabtaa sometimes marmarka qaar but not always laakiin maaha badanaa okay hagaag listen to this advice taladan dhageyso ama waanadan dhageyso carefully si degan first marka hore come to schoolka kaalay every school day maalin kasta iskuulka la dhiganayo secondly mar labaad come class early classka xili hore kaalay or on time ama waqtiga saxda third waa marka saddexaad read your lessons casharadaada akhri and share the students ardaydana la wadaag the class activity hawsha classka if you do this haddii aad sidan samayso and follow aad raacdo this advice taladan I am sure waxaan hubaa you will learn inaad baran doonto how to speak sida loogu hadlo write loo qoro and understand loona fahmo English language luqadda Ingiriisida okay friend hey saaxiib thank you very much aad baad u mahadsantahay I will follow waan raaci doonaa and take waanan qaadan doonaa your advice taladaada you must welcome adiga mudan ugu mahadsantahay daawashada iyo dhageysiga fiidiyogan haddii fiidiyow ku cajabiyay like noo saar dhiirigelin bay noo tahay